daawadayaasha qiimaha badan meel walba joogtiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh maantana waxaan idin hayaa qiso cajiib ah aad ka wada heli doontiin insha allah qisadani waxay dhacday xilli jaahiligii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hor waxaa jiray nin oday ah waxa uu lahaa hanti aad iyo aad u fara badan waxaana u joogtay 4 wiil uu dhalay ayaa joogtay odayga wuxuu ka ahaa beesha ama qabiilka uu la degan yahay nin muctarif ah aad iyo aad looga jecel yahay deeqsina ah waagii dambe ayuu wuxuu damcay in uu xanuunsan yahay wuxuuna dareemay xanuunkan in uu yahay midkii uu ku dhiman lahaa ama uusan ka kici doonin wuxuu u wacay afartiisa wiil waxa uu ku yidhaahda wiilashaydiiyo waan idiin dardaarmayaa waxaana idiin dardaarmayaa dardaarankii iigu dambeeyey wiilashii kii u weynaa ayaa waxa uu yidhaahday aabbo waxaan rajaynaynaa in aad nala sii noolaatid in muddo ah nala sii joogtid odaygiina waxa uu yidhaahday ha iga qasina sheekadayda waxaa laga yaabaa in ay tahay tan tii u dambaysay ee aan ku sheekaysanaynay wiilashiina waxay dhaheen haye aabbo wuxuu yidhaahday kow waxaan idinkula dardaarmayaa in aad noqotiin walaalo isku xiran oo isjecel iswalaashada si uusan cadowgiina tafaraaruqiina oosan uga helin dulduleel oo idiin soo maro wiilashiina waxay dhaheen haye wuxuu yidhaahday waxaan kaloo idin dardaarmayaa walaalkiina idinkugu weyn waxa uu iska leeyahay teendhada gaduudan iyo wixii xoolo hanti ah ee aan leeyahay ee teendhadaasi shabaho walaalkiina labaadna waxa uu yidhaahday asagana waxa uu leeyahay teendhada madow iyo wixii hanti ah iyo xoolo shabaho ayuu iska leeyahay kiina saddexaadna wuxuu leeyahay asagana addoonka hebel la yidhaahdo iyo wixii addoonkaas shabaha ee hanti ah walaalkiin idinkugu yarna wuxuu iska leeyahay teendhadan majliskan aan fadhino iyo lacagta taallo iyo wixii shabaho ayuu yidhaahday wiilashiina waxay dhaheen haye aabbo waan yeelnay dardaarankaaga insha allah waannu ku dhaqmi doonnaa wuxuu yidhaahday dardaarankaygii haddii aad fahmi weysiin oday hebel oo meel heblaayo ku nool u taga asaga ayaa idinkala saari doono waa nin caqli badan waxa uuna fahmayaa wixii aan ula dan lahaa dardaarankaas wiilashiina waxay dhaheen haye aabbo waan oggolaannay markii ay in muddo ah ka soo wareegtay odaygii waa uu xijaabtay wiilashiina aad iyo aad ay uga murugoodeen dhimashadii ama geeridii ku timid aabbahooda muddo kadib waxay damceen xoolihii sidii aabbahood ugu sheegay in uu u kala qaybsadaan ugu dardaarmay u kala qaybsadaan dardaarankii way iska caddeed laakiin waxa ay fahmi waayeen qaabka ay isku raacayaan waxayna isku waafaqeen odaygii oo aabbahood u tilmaamay in ay aadaan ninkii garyaqaanka ahaa caaqilka ahaa inay aadaan waxayna u ambabaxeen safar intay sii socdeen ayay waxay arkeen meel geel raad oo maray oo geela wuxuuna yidhaahday midkood meeshaan waxaa maray ratigaanna wuxuu ahaa mid naafo ah kii labaad ayaa soo booday wuxuu yidhaahday waa runta ratigan naafo wuu ahaa ilsha bidixna waa uu la'aa kii saddexaad ayaa soo booday waxa uu yidhaahday haa seenna ma lahayn ratigan kii afaraad ayaa soo booday waxa uu yidhaahday neefkan geela ah waxa uu waday malab hawshoodii ayay iska sii socdeen in cabbaara markii ay sii socdeenba waxaa ka hor imaaday nin aad u murugaysan raadinayna baadi waxa uu yidhaahday niimayahu ma aragteen rati kii koowaada soo booday wuxuu yidhaahday ratigu ma ahaa mid seen go'an haa ayuu yidhaahday kii labaad ayaa soo booday isha bidix ma la'aa haa waaye haddana kii saddexaad ayaa yidhaahday neefkaaga ma dhutinayo oo lugta ma la'aa wuxuu yidhaa haa waa runtiin intaasoo calaamo ma lahaa kii afaraad ayaa yidhaahday neefkaasi malab ma waday haa waa aragteene neefkayga isiiyaa waxa ay ugu jawaabeen annagu ma aanan arag ratiga aad raadinaysid wuxuu yidhaahday tuugo ayaa tihiin waxaadna rabtiin in aad dhacdiin neefkaygii wa ilaa isiiya haddii ay sii weyseenna garyaqaanka ayaa idinku soo dacwoonaya u tegayaa waxay yidhaahdeen waad fiican tahay annaguba hadda asaga ayaan u soconnaa afartoodii iyo ninkii oo xanaaqsan oo aad iyo aad cunaha kala go'an yihiin ciil dartiis ayaa nimankii sii raacay waxayna gaareen ninkii garyaqaanka ahaa
waxayna u kordhigteen arrintii. Intii aan la bidaa ninkii xanaaqsanaa ayaa soo booday. Waxa uu yidhaahdeen nimankan waxa iiga xadeen ratigaygii ayaga ayaa haysto. Waxa uu yidhaahday ninkan ratigiisa ma aragteen? Waxay ku jawaabeen maya maanan arag. Ninkii ayaa soo booday way arkeen. Haddii aysan arag maxay u tilmaameen geelaygii inta sifa oo lahay oo dhan waa ay sheegeen. Ninkii ayaa u jeestay afartoodii. Wuxuu yidhaahday arrintu ma sax baa? Waxay ugu jawaabeen haa. Wuxuu yidhaahday sidee baad ku aragteen astaamahaas idinkoo aad neefkaas geelaas arag? Midkii koowaad ayaa soo booday. Waxa uu yidhaahday neefkaas isha bidix waa uu la'aa sababtoo ah cawska iyo geedaha halka in dhinaca midig unbuu ka cunayay. Marka waxaan ogaaday dhinaca bidix in uu la'yahay oo sanduuqa iyo cawska jira uusan arkaynin. Kii labaad ayaa soo booday oo wuxuu yidhaahday anigu waxaan ku gartay neefkaas in uusan sayn lahayn. Geela saxaraha wuu digada waa uu sayraa, laakiin kan asagoo tuurtuura ayuu dhigayay. Marka waxaan isdahay inuusan sayn lahayn, sidaas ayaan ku qiyaasay. Kii saddexaad ayaa soo booday. Waxa uu yidhaahday geelu marka uu soconayo saanta dhulka si fiican ayuu u dhigaa, laakiin midkani hal lug ayaad naafa inay tahay ka dareemay oo raadkeeda si fiican dhulka uma aysan qabanin. Kii kale soo booday wuxuu yidhaahday anigu waxaan ku fahmay inuu malab wado neefkaas. Xasharaadka macaanka jecel iyo malabka jecel ayaa daba guuray oo geeduhu maray oo dhan xasharaadkaas ayaa joogay. Ninkii garyaqaanka ahaa ayaa ninkii reer miyiga u jeestay. Wuxuu yidhaahday nin yahow nimankan calaamadahaas ayay sheegeen. Geelaagii inta uusan lumin orodoo sii raadso. Ninkiina waa uu baxay. Wuxuu yidhaahday idinka xaaladiinu ka warama. Waxay dhaheen annagu aabbaheen ayaa nala dardaarmay. Waxa uu yidhaahday midkeena ugu weyn wuxuu dhahay teendhada gaduudan iyo wixii xoolo oo shabaho ayuu iska leeyahay. Midka labaadna wuxuu leeyahay teendhada madow iyo wixii xoolo shabaho ayuu leeyahay. Kan kalena waxa uu leeyahay addoonka hebel ah iyo madaxa cad iyo wixii shabaha oo xoolo ah ayuu leeyahay. Midkana inoogu yarna wuxuu yidhaahday majliska aan fadhino iyo xoolaha yaallo iyo wixii shabaho ayuu iska leeyahay. Ninkii garyaqaanka ahaa ay u yimaadeen ayaa yidhaahday waan fahmay dardaarankii aabbihiin. Wuxuu yidhaahday kow ninkiina idinkugu weyn waxa uu siiyey teendhada guduudan. Wuxuu yidhaahday teendhada guduudan beeraha ay ku dhex taallo iyo teendhadaas asaga ayaa kow hortar iska leh. Waxa shabaho guduud ah sida fardaha guduudan, geela midiisa guduudan, lo'da guduudanna dhammaanna asaga ayaa iska leh. Kiina labaad wuxuu yidhaahday teendhada madow. Teendhada meesha ay ku taallo iyo beeraha ku yaallo iyo xoolaha kuwa madow sida geela madow, fardaha madow, lo'da madow dhammaanna asaga ayaa iska leh. Kiina saddexaad wuxuu yidhaahday addoonka madaxa cad wuxuu yidhaahday addoonkaas iyo beeraha uu ka shaqeeyo iyo sidoo kale xoolaha kuwa cad sida ariga dhammaan, lo'da kuwa cad, geela cad, fardaha dhammaanna asaga ayaa iskale ayuu yidhaahday. Midkiina idinkugu yarna waxa uu yidhaahday teendhada meesha aad saldhiggeedii ah oo reerka dhan ay ku shiraan, sababtoo ah wuxuu idinku doortay in uu idin noqdo hogaamiyo sida teendhadaas iyo wixii talo ah iyo hantida dhex taallo sida dahabka iyo fidlada iyo lacagta ayaa iska leh. Waxaana rajaynayaa in aad dardaaranka aabbihiin ay yeeshiin wixii talo ahna midkiina idinkugu yar aad uga dambaysiin aadna ku raacdiin wixii go'aan oo soo gaaro. Afartoodiina markii ay dhegaysteen taladii ama sidii ugu fasiray dardaarankii aabbood waa ay yeeleen dhammaan waana ay ku qanceen in ay dardaarankaas ay fuliyaan. Wuxuu yidhi nimay horta waxaad tihiin niman xigmad badan sidaa aad ratiga u qiyaasteen. Waxaana jeclaan lahaa in aad ila shaqaysaan. Ayakana waxay yidhaahdeen waan kula shaqaynaynaa wixii aqli iyo ra'yi aan ku dheernahay
waan kula wadaagaynaa insha allah. adiguna waxaan rajaynaynaa wixii tala ah iyo in aadna siisid. halkaas ayayna maanta qisadannada ay ku eg tahay. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.